students kusoo dhawaada casharka qaybtii hore ayaynu soo qaadanay ereyadii oo wata micno Soomaali ah iminkana waxaynu usoo gudubnay jumladihii oo ayaguna Soomaali ku macnaysan haddana waynu akhrinaynaa si sax ah ayaynu u akhrinaynaa marka please ka taxadar dhawaaqa waxaa jira inta badan marka ugu horeysa oo aad wax baranaysid ayaa fiican si sax ah inaad u baratid haddii kaloo si qalooc ah ama qalad ah aad u baratid way kugu adkaanaysaa hadhowti inaad beddesho marka si wanaagsan aynu iskula soconno let's go aynu bilowno sentences maxaa waaye jumlado waa jumlado sentences maxaa waaye jumlado okay Ahmed abandoned his house Ahmed abandoned his house Ahmed waxa uu ka tegey gurigiisa he has shown waxa uu muujiyey the ability awoodda to speak inuu ku hadli karo foreign languages luuqado ajnabi ah he has shown waxa uu muujiyey the ability awoodda to speak uu ku hadli karo foreign languages wuxuu muujiyey awoodda uu u leeyahay inuu ku hadlo luuqadaha ajnabiga foreign maxaa waaye ajnabi languagesna luuqado dabcan inkastoo ereyadu aysan ku koobnayn kuwii aynu soo baranay oo kaliya haddana waan kuu calaameeyey oo waxaan saaray dabcan boldi ayaan ka dhigay ama madowgaas ayaan ka dhigay ereyadii aynu horey u qaadanay laakiin kuwo kale oo aan ka dhicin ama aan ka sahlanayn ama aan ka qiimo yarayn ayaa ku jira marka gebi ahaantiisba si wanaagsan u daawo casharka oo u dhegayso oo u baro insha allah abortion ilmo iska soo rid maxay ahayd ilmo iska soo rididdu is illegal waa sharci darro in some western countries qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka some qaar western countries wadamo countries maxaa waaye countries wadamo western reer galbeed wadamada galbeedka ama reer galbeedka ilmo iska soo rididdu waa sharci darro qaar ka mid ah wadamada galbeedka ama reer galbeedka I'm halkan waa lasoo gaabiyey dabcan I am ayay ahayd sidaana waa loo dhigaa waynu arki doonaa qofkii uu mugdi uga jiro marka I'm very concerned aad ayaan uga walaacsanahay about her illness xanuunkeeda anigu aad ayaan uga walaacsanahay xanuunkeeda we were flying waxaynu duulaynaa above the clouds daruuraha korkooda waxaan duulayna dheh waa basi waa haddaa aragtid waa basi marka sidoo kale waxaa xusid mudan oo aan rabaa inaan idin xusuusiyo maybe qaarkiin inaad garanaysin halkan where waaye ama waa basti waaye marka waxa lasoo dhaafay dabcan waynu baran doonaa insha allah marka waxa aan u socdaa waxay tahay waxaa jirta meelaha qaar markii aarta la joogo waa la qarin karaa oo waxaa la dhihi karaa tusaale ahaantan oo kale waa haddii la rabana waa la muujin karaa waxaa la dhihi karaa where marka labadaasuba way jiraan ayaguna shuruuc gooniya iyo sharciyo ayay leeyihiin dabcan haddii aad xoogaa ka fahamsan tahay waa okay haddii kalena no problem waynu ku tegi doonaa tusaale ahaantan oo kale fiiri they are waa la dhihi karaa waa okay waa fahmaysaa sidoo kale waxaa la dhihi karaa they are aartaasoo dhan waa la qarin karaa they are not going abroad ayaku dibadda uma socdaan for their holiday fasaxooda this year sanadkan ma doonayaan ama ayagu ma doonayaan inay dibadda aadaan fasaxooda sanadkan they are not going abroad ayagu ma aadayaan ama ma doonayaan inay aadaan for their holiday fasaxooda this year abroad inay dibadda aadaan abroad ereyada aan soo baranay ka mid ahayd dibadda
ma doonayaan inay dibadda aadaan fasaxooda sanadkan. This year sanadkan holiday fasax. She returned waxay ku laabatay to the company shirkadda ayay ku laabatay after kadib a long absence kadib maqnaansho dheer muddo dheer oo ay maqneed shirkadda ku laabatay. She returned waxay ku laabatay to the company shirkadda after a long absence kadib maqnaansho dheer waxay ku laabatay shirkadda kadib maqnaansho dheer. I have absolute faith waxaan gebi ahaanba aaminsanahay in her ability awoodeeda to get ay ku qaban karto to get the job dhan ay ku qaban karto shaqada ay ku qaban karto shaqada. I have absolute faith waxaan si buuxda u aaminsanahay ama aan aad u aaminsanahay in her ability awoodeeda to get ay the job dhan ay ku qaban karto intaan isla socotaa to get the job dhan ay ku qaban karto ama ku samayn karto shaqada. You are halkan fiir marka waa la soo gaabiy calaamadda haddaa aragto laba waxyaabood ayaa loo isticmaalaa apostrophe aa la yidhahdaa soo gaabinta ayaa ka mid ah. You are ayay ahayd meesha waa la soo gaabiy maxaa laga dhigay your aa laga dhigay. You're absolutely right gebi ahaanba waad saxsan tahay. Adiga soomahan adigu gebi ahaanba waad saxsan tahay. You're absolutely right gebi ahaanba waad saxsan tahay. She is good at waxay ku wanaagsan tahay ayadu absorbing dhuuxitaanka information xogta. She is good at waxay ku wanaagsan tahay absorbing waa dhigi kartaa aarta waa muujin kartaa dabcan wayna u tegi doonaaye. She is good at waxay ku wanaagsan tahay absorbing dhuuxitaanka information. Absorbing maxaa ku soo marnay laba micno oo ahaa dhuuxitaan waatana hadda information waa xog dhuuxitaanka xogta maxaa ku soo marnay laba waxyaabood ama laba macno ahaa dhuuxitaan iyo dhuuqitaan. ayadu waxay ku wanaagsan tahay dhuuxitaanka xogta. Abuse muxuu ahaa xadgudub. xadgudubku can lead wuxuu horseedi karaa to psychological problems dhibaatooyin maskaxeed. xadgudubku wuxuu horseedi karaa dhibaatooyin maskaxeed. Abuse can lead to psychological problems. I spent waxaan ku bixiyey my academic career hawshaydii waxbarasho at one school hal school ayaan ku bixiyey micnaha hal school ayaan ku qaatay hawshaydii waxbarashada. You were ready adigu waxaad diyaar u ahayd to accept maxay ahayd aqbalid inaad aqbashid daad fogti xaqiiqadaas already mar hore. You were ready adigu mar hore ayaa diyaar u ahayd to accept inaad aqbashid daad fogti xaqiiqadaas already mar hore. adigu waxaad diyaar u ahayd inaad aqbasho xaqiiqdaas mar hore. You had access waxaad awood u lahayd to that door albaabkaas ayaad awood u lahayd door ama door. adigu waxaad awood u lahayd albaabkaas and didn't walk through it mana aadan marin. albaabkaas awood u lahayd inaad marto mana aadan marin. fiir marka si wanaagsan ugu dhug yeelo. You had access waxaad awood u lahayd to that door ama that door albaabkaas and didn't walk through it mana aadan marin. halkaan iska fiiri wallkii lama dhahayo eltaasu waa aamusan tahay ama waa silent maxaa leeyahay walk halkaana through it. adigu waxaad awood u lahayd albaabkaas mana aadan marin. He was injured si wanaagsan u dhegeysa meeshaan. He was injured ama injured asagu waxa uu ku dhaawacmay in an accident shil ayuu ku dhaawacmay at work oo shaqada ka dhacay. waxa uu ku dhaawacmay shil ka dhacay shaqada. She will accompany me aniga ayay iwelin doontaa. She ayadu will accompany me
aniga ayay u helin doontaa oo ii raaci doontaa to the store baqaarka to the store ama store baqaarka we could accomplish waxaan gaari karnaa guul kasta about anything wax kastoo we decide aan go'aansano to do inaan samayno waan gaari karnaa wax kastoo aan go'aansano okay inaan samayno ama qabano we could accomplish waan gaari karnaa about anything wax kastoo we decide aan go'aansano to do inaan samayno ama qabano according to maxay ahayd according to marka loo eego rumors ama rumors ama rumors aartas marna waa la qarin karaa marna waa la soo saari karaa marna waa American English marna waa British English according to rumors marka loo eego wararka ku tirkuteenta rumors maxaa waay ku tirkuteen warar suuqa la isla dhex marayo oo laga yaabo inay sax ahayn according to rumors marka loo eego wararka ku tirkuteenta I have heard waxaan maqlay I've heard halkaan waxaa laga soo gaabiyay I have calaamadaas soo gaabin ayaa loo isticmaalaa I've heard waxaan maqlay he was fired in loo eriyay for stealing xatooyo in loo eriyay oo macnaha shaqada looga eriyay according to rumors I've heard he was fired for stealing xatooyo I don't have milihi a bank account akoon bangi milihi ama xisaab bangi milihi waa akoonka xisaabiga ma furna ama akoon kuma lihi bangiga I don't have milihi a bank account akoon bangi milihi haar novel sheekadeedu is historically accurate taariikh ahaan way saxsan tahay haar novel maxaa waa sheekooyinkan buugta lagu qoro haar novel sheekadeedu is historically taariikh ahaan accurate way saxsan tahay